halkani waa BBC London saacadda Afrikada bari iminka waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah. kulan wacan wanaagsan khiyaarta la dhageysanayay waa galab Jimcaha 2 bisha Maars. wararka caalamka ee BBC-da kadibna waxa aad maqli doontaan barnaamijkii dooda galabtay oo aanu ku eegayno xaaladda amniga ee Soomaaliya iyadoo oo shir sare uu Kampala uga socdo madaxda wadamada Afrika ee ciidamada nabadgelyadu ay ka joogaan dalka Soomaaliya. maantana xarakada shabaab weerar ay ku qaaday meel ay fadhiyeen ciidamada midowga Afrika. wararka caalamka ee BBC-dana waxa ugu weyn dawladda Burkina Faso sheegtay in la laayay ragii maantay weerarada iyo qaraxyada ka geystay safaaradda Faransiisku ku leeyahay caasimadda dalkaasi Ouagadougou. dhageystayaasha oo qodobka dooda ra'yigooda ka dhibanaya iyo sida ay la tahay in lagu xasilin karo Soomaaliyana waxaa ka mid ah. magacaygu aniga waa Faadimo Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. amniga Muqdisho soo xumaanaya ama koonfurta Soomaaliya waxay ila tahay maarta militariga madaxdooda markasta la bedelayo. dhageystahani waa uu fikrad kale ayuu qabaa oo taa gabadha ka duwan waxaana uu yiri dawladda Soomaaliya waxaan kula talinahay in xarakada la gasho wada hadal ayna dhinac iska dhigto dagaalada ama in qaab militari ku xaliso dagaalada ay shabaab kala soo horjeedaan dawladda. waa tahay kuwaas iyo dhageystayaal kale oo iyaguna aaraadooda dhibtay iyo khubradii barnaamijka dooda maanta kala qayb galashay ayaad maqli doontaan. halkani waa London. waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da waxaa noo haya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Saraad. mahadsanid Cabdinuur. madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump ayaa waxa uu ku adkaysanayaa dagaalka ganacsigu inuu u sahlanaan doono una fiicnaan doonto buu yidhi Maraykanku inay ku guulaystaan sababta oo ah balaayiin doolar ayaanu ku weynaa buu yidhi ganacsiyada aanu la leenahay adduunka qaarkood. faallooyinkiisaasi aad baa adduun weynuhu uga gelgishay waxaanay tahay sababaha uu doonayay isagu inuu u kordhiyo cashuuraha birta iyo aluminiyamka waddankiisa uu soo iibsado. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Sigmar Gabriel ayaa waxa uu ku tilmaamay arrintan inay tahay mid midowga Yurub si fiican ay uga jawaabaan. waxaanu sheegay in loo baahan yahay in laga leexdo waxa uu ku tilmaamay dagaal ganacsi. saraakiisha Shiinaha ayaa qudhoodu ka gilgishay laakiin si fudud uga hadlay. gabadho hadashay waddankaasi Shiinaha Hua Jungyang ayaa waxa ay sheegtay dagaalkan loogu talagalay ganacsigu inuu yahay adduunka mid waxyeelaynaya. maraykanku waxa uu mar horeba soo saaray dhowr arrimood oo caqabada ku ah soo dejinta alaabaha birta iyo almuniyamka taasi oo ka badan alaabaha gudaha. haddii dalalka oo dhan ay raacaan tusaalaha Maraykanka tani waxay yeelan doontaa saamayn xooggan waxayna ku yeelanaysaa hannaanka ganacsiga caalamiga ah. rasaas joojin iyo qarax ayaa ka dhacay bartamaha xarunta waddanka Burkina Faso ee Ouagadougou. dad goobjooga ayaa waxa ay sheegeen niman wejiga soo duubtay dhabarkana qalab ku sitay in ay soo galeen meel militarigu ay joogeen oo irida waxaana la sheegay rasaas inay ka dhacaysay safaaradda Faransiiska oo goobta aan ka fogeyn. ilaa iyo imika ma cadda cidda ka dambaysay weeraradaasi. Burkina Faso had iyo jeer waxaa weerar ku soo qaada kooxaha islaamiyiina oo la sheegay gacan inay la leeyihiin al-Qaacida. laakiin dhowaanaha dalka waxaa ka jiray xasiloonaan darro dhinaca siyaasadda iyada oo 10 qof maxkamad la soo taagay oo lagu eedeynayo afkami dalka la isku dayay in laga rido 2015. miradhadii ugu dambeeyey afhayeen u hadlay dowladda Burkina Faso ayaa waxa uu sheegay 4 ka mid dadkii weerarka ku soo qaaday safaaradda Faransiiska xarunta waddankaasi Ouagadougou in la dilay. dowladda Suuriya ayaa ciidamadeedu ku soo waramayaan in ay dhul qabsadeen. dhulkaasi ay dagaalka kula jiraan kooxaha fallaagada ah ee qabsaday meel ku taala darafka magaalada Dimashq. urur u halgama xuquuqda bini'aadmiga Suuriya oo saldhigoodu yahay dalkan Britain ayaa waxa ay sheegeen dagaaladu inay ka soconayaan bariga iyo koonfurta bari ee Ghouta. 100,000 oo qof ayaa lagu soo waramayaa go'doon goobahaasi inay ku yihiin lagu xeeran yahay. waxaana la sheegay weerar inuu kaga imanayo ciidamada Ruushka oo ay taageeraan ee Suuriya. isla markaasi fallaagada Ghouta ayaa lagu soo waramayaa iyaguna
inay duqeeyeen meelo aan ka fogeyn magaalada dimashaq bam gaari la saaray ayaa qof isku qarxiyey meel ciidamada ajnabigiihii ay joogeen xarunta waddanka afghanistan ee kabuul halkaasoo qof rayidihii uu ku dhintay ugu yaraan 14 qof oo kale oo goobtaa joogay ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay dad goobjooga ayaa waxa ay sheegayaan qaraxaasi hase yeeshee dhismayaal iyo dukaanno inuu khasaaro weyn u geystay magaalada qabalbaay kooxina ma sheegan weerarka inay soo qaaday laakiin bilihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayey dagaalada lagu soo qaadayo magaalada kabuul tan waxay ku soo beegantay 2 maalmoodun kadib markii madaxweynaha dalkaasi ashraf khani uu sheegay inuu doonayo diyaar inuu u yahay wadahadal in uu la galo taalibaan khaan maxamed waxa uu ahaa nin joogay goobtii qaraxuu ka dhacay waan ka agdhowaa markii uu qaraxa xooggan dhacayay goobta qaraxa ayaan markiiba toos ugu cararay waxaan arkay gabar ku dhimatay iyo kuwo kale oo dhaawacmay qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen saraakiisha dhinaca ammaanka ee ka joogta nigeria in ay soo warrameen in 11 qof ay ku dhinteen weerar la sheegay kooxa mitidihii inay ku soo qaadeen waqooyiga bari gobolka ku yaalla ee bono qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen 3 shaqaalahoodii halkaa inay ku dhinteen nin dhakhtara u shaqaynayay unisef iyo 2 la sheegay inay ahayn maamulayaasha goob dadku ay joogaan ran oo la sheegay in ay kaan qaxooti ahaan ugu jireen saraakiisha ammaanka ayaa waxa ay sheegayaan boko xaraam inay ka dambeeyeen arrimahaasi iyagoo isticmaalayay bazuuka iyo gawaadhi qoryo u saaran yihiin markii weerarka ay soo qaadeen oo lagu soo warramay 8 askari halkaa inay ku dhinteen boliiska dalka israa'iil ayaa waxa ay sheegeen su'aalo inay weydiinayaan ra'iisul wasaaraha dalka benyamin netanyahu iyo xaaskiisa sara oo ku lug leh eedaysi la sheegay musuqmaasuq inay galeen waxaana la sheegay inay ku lug leedahay sharikadda ugu weyn isgaarsiinta ee waddanka israa'iil ee bezeg netanyahu waxaa la sheegay baaritaano kale oo musuqmaasuqii inay dhinacyo kale kaga socdaan isagoo oo arrimahaasoo dhan beenayey cabdirasaaq xaaji maxamed salaad iyo wararka caalamka halkaad kala socotaan waa b b c la dhalow diyaar garooba barnaamijkii dooda waa tahay barnaamijka dooda galabtay oo aad toos ugala socotaan facebooka ee b b c soomaali ayaa waxa aanu kaga hadlaynaa guud ahaan xaaladda amniga ee soomaaliya iyadoo dhinaca kalena shirka madaxda wadamada ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya ee midowda afrika uu uga socdo magaalada kambala iyo sababta keentay shabaabku in ay dardalgeliyaan weeraradan uu la egto ciidamada midowda afrika kuwa dowladda iyo xarumaha dowladda federaalkaaba waxaa marti noo ah galabtay iyagoo ku mahadsan wakhtiga ayna siiyeen dr ibraahim bursaliid oo stuudiyaha iyaga nairobi fadhiya iyo wuxuu la faguraa arrimaha amniga afrika siba soomaaliya marar badanna waa aad maqasheen isagoo nooga warramaya stuudiyaha londonna waxaa ila fadhiya hadda cabdiweli garaad oo shahaadada doctoratka ku diyaariya jaamacadda birmingham ee dalkan britain oo daraasaadka amniga iyo daldhisidda ku takhasusa iyo magaalada muqdisho oo khadka uu kaga jiro afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdicasiis xildhibaan iyo dabcan arada dhegeystayaasha oo cod iyo qoraalba u dhiiban doona waa tahay hogaamiyaal ka kala socda wadamada kenya uganda soomaaliya jabuuti etoobiya ayaa magaalada kambala waxaa uga socda shir sare wuxuu ku saabsan yahay amniga soomaaliya waa wadamada ciidamada nabadilaalinta midowda afrika ay ka joogaan soomaaliya waxaa ka horreeyey shirkii wasiirada gaashaandhigga oo shalayta magaalada kambala uu taliyaha ciidamada qalabka sida ee uganda halkaasi ka soo jeediyey warbixin uu ka siiyey waxa qabadka amisom ee soomaaliya guulo badan ayuu sheegtay waxaa ka mid ahaa 80% shabaabka inay ka xoreeyeen dhulkii ay ka talin jireen iyo qodobo kale oo la taxay dad badan ayaa laga yaabaa indhaha inay aad u kala qaadaan marka warkaasoo kale ay maqlaan iyo weerarada isdabajooga noqday ee shabaabka uu la egto ciidamada midowda afrika iyo kuwa dowladda soomaaliya iyo weliba xarumaha dowladda federaalka ah oo weeraradii u dambeeyey oo maanta jimco ah dhowr meelood oo kala duwan shabaabku ay ku qaadeen marsii horreysay uu nooga warramay wariyaha b b c da ee muqdisho cali nuur salaad maanta barkanimadii ayay xooga ka tirsan xarakada al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen kolayo ciidan ah oo amisom ay leedahay oo ku wajahnaa jowhar marayay meel balcad u dhow
weerarkaas waxaa la sheegayaa in khasaare xoogan uu kasoo gaaray ciidamada amisom kadibna waxaa xigay in ay weerar ballaaran kusoo qaadeen magaalada ama degmada balcad ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaas waxa ay qabsadeen inta ugu badan magaalada oo ay gacanta ku dhigeen waxa ay meelaha ay la wareegeen kamid ah idaacad si gaar ah loo leeyahay oo deegaanka ku taala sidoo kale goobaha muhiimka ah dowladda xafiisyadeeda ayay sidoo kale la wareegeen markii ay shabaabku halkaa la wareegeen waxaa jirtay in aanu la xiriirnay ciidamada amisom xaruntooda ama taliskooda dhexe si aanu uga helno xog dheeraad ah khasaaraha ciidamadooda soo gaaray waxay inoo sheegeen ilaa iyo iminka inaysan u diyaarsanayn in ay warbaahinta la hadlaan weerarka balcad kadib xero ciidamada soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka afgooye ayaa ciidamadu waxa ay doonayeen in ay gurmad u sameeyaan xerada waa xero lagu tababaro ciidanka islamarkaana waxaa gacanta ku haya ciidamada imaaraadka ee tababara qaar ka mid ah ciidamada xoogga soomaaliya gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo nuuca raaxada ah ayaa lagu qarxiyey albaabka khasaare ayaa halkaas ka dhacay iyana sidoo kale balse dowladdu waxa ay xaqiijisay in ilaa 3 askari ay halkaa ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale dadka ay meesha wax kasoo gaareen kamid ah dad shacab ah markii uu dhacay qaraxa kadib dhaawacii laga soo qaaday oo magaalada muqdisho loo soo wadayna miino kale ayaa kula qaraxday gawaaridaas taa oo kordhisay tirada dhaawaca ciidamada dowladda soomaaliya ee qaraxaasi kasoo gaaray waxaanu qadka telefoonka kula xiriiray oo sida ay wax u dhaceen aan weydiiyey taliyaha qeybta booliiska gobolka shabeellaha hoose oo gaashaane sheegow la yidhaahdo oo ku sugan afgooye waxa uuna iiga warramay sida ay wax u dhaceen wax shacab ah haba yaraadaan meesha wax ku gaaray oo aniga hadda waxa way dad shacab ah oo kooxahan dhaqaaqayaasha oo dhib u geysteen ma qarinayo misaalkiina waa aan tagnay wax hadda shacab ah oo wax soo gaaray meel ciidan maaragta u dhow ciidan u dhow uu ku qarxay shacab eeridaas maba u dhowaan aad buu u mahadsan yahay taliyahaasi bileyska shabeellaha hoose oo u warramayey wariyahayaga cali nuur oo warbixintiisii ay u dambeysay haddaba aan u galo martida sharafta leh ee barnaamijka nagala qayb galaysa siiba magaalada muqdisho iyo afhayeenka amniga xildhibaan waxa warahoo cusub oo aad ku dari karto wixii maantay weeraradii iyo qaraxyadii shabaabka ay ka geysteen labada magaalo ee labada dhinac ka kala xigta caasimadda xildhibaan way maqlaysaa muqdisho waa tahay waxaan u malaynayaa inaan ku soo noqon doono xildhibaan waxaan u baaqayaa doctor bursaliid oo fadhiya stuudiyaha iyaga ee nairobi waa aad maqlaysay warbixintii marka hore waa kaaga mahad celinaya horta maanta oo jamco ah oo maaragtay inta badan oo aan barnaamijkan kaaga baahano runtii aad adiga iyo akhyaarta kale iyo aad naga yeeshaan mar walbana aad nagala qayb gashaane bal ka waran warbixintii iyo arrimahan weeraradan ugu dambeeya shabaabka maanta mahadsanid asxaabta kale ee ula jirta khadka iyo guud ahaanba shacabweynaha soomaalidana waan salaamaya arrintan arrin cusub ma ahan waxaadna moodaa inay jawaab u tahay shirka kambaala ka socda ee taliyaasha ciidamada ay uga arrinsanayaan qaabkii howlgallada nabad ilaalinta ee midooda afrika loo soo afjari lahaa taladana loogu wareejin lahaa ciidamada soomaalida mustaqbalka dhow ilaahay idamkii iyo in laftigooda ay waxoodii meel saartaanoo ay wixii huba iyo saanada iyo mushaaraadkoodii iyo xuquuq kaloo ay lahaayeen waayadanba tartiib loo jarayay ay u dagaalamaan oo wax soomaali keliya loo raadinaya ma ahayn waxaad moodaa in 80% ay ayaga si u sadbursanayaan oo arrintooda ay meel saarayaan laakiin ay khasab tahay in qorshaha lagu daro in ciidanka qaranka ee soomaalidana lasoo dhiso markasta oo ayaga ay sii baxayaan marka weeraradan waa weeraro jawaab u ah oo ay fariin ku dirayaan nimankan yaryarka ah in aanu xaalka dhoweyn iyo in amisom haddii ay joogaysa hadday baxaysaba ay weli ayagu yihiin arrin jirta oo muhiima ayna u baahan tahay in la ogaado lalana falgalo wax ka duwan oo aan ahayn wixii hore ay samayn jireenna ma ahane inay waddanka joogaan bay dadka fariinahan ugu dirayaan
waa tahay waa kugu soo noqonayaa qodob aad xustay baan aad u jeclaan lahaa hadhow inaanu u galno waxaan u baqayaa magaalada muqdisho oo mar dhow afhayeenka amniga ee dowladda federaalka ah xildhibaan waxaan waa maqlaysaan u malaynaya warbixintii hadaayey ka warramaysay qaraxyadii weeraradii maanta shabaabka magaalooyinka uu ka geystay marka wax cusub oo dhinacina idinku soo kordhay oo tafaasiilahoo aad naga siin kartaa ma jiraan bismillahi raxmaani raxiim waa salaamaya guud ahaan shacbiga soomaaliyeed cabdinuur sheekh maxamed isxaaq sharaf iyo noo tahay inaan barnaamijkan aad uga hadlaysaan amniga maanta uga qayb galno annaga oo warbixinta kala siinayna guud ahaan shacbiga soomaaliyeed lana wadaagayna anigu waxay la tahay ma jirto shacbiga soomaaliyeed inay moog yihiin dagaalkan kala soo horjeedno maleeshiyada al-shabaab waxaad garanaysaan annaga oo kaashanayna awoodda ilaahay tan shacbiga soomaaliyeed inaan dhabarka jebinay boqolkiiba in ka badan 80 dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamadeena iyo kuwa amisom ee gacanta aan ka helayno aan la galnay maleeshiyada al-shabaab islamarkaana ku burburinay laamihii warbaahinta ee banabuurka ay ka baahan jireen ee ondulus iyo gaadiid dagaal sidoo kalena aan kula wareegnay hub fara badan oo ay khatar ku gelinaayeen nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed horey ayaan ugu yeelinay dagaalka aan kula jirna al-shabaab maleeshiyada al-shabaab macnaheedu inuusan ahayn in ay dhamaatay khatartii dhinaca amniga ah ee ka jirtay soomaaliya laakiin waxaan ugu baaqnay in ay taageeraan ana siiyaan si aan uga guulaysano ilaa inta aan ka hubinayno taaka ka mida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya inaan ka xoreyno maleeshiyada ku ah waa tahay xildhibaan qarannimada soomaaliya goormaad idaacadahaas iyo hubkaas iyo waxaas iyo wakti intee la eg baad ka burburiseen ma waxaad leedahay hadda idaacado hadasha shabaabka ma jirto waxay wax ku baahiyaan baraha ay isticmaalaan ee bulshada si ay u marin abaabiyaan dagaalkan kala soo horjeedno warbaahinta qaarkeed ka howlgasho magaalada muqdisho marka lagu daro sidaan rajeynayo b b c da wuxuu abaandunaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kordheeyey aniga oo la socda goobtii ay ku taallay idaacadda aan weerarka ku qaadnay oo magaalada mubaarak ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya sidoo kalena gaadiidka aan kaga dugnay islamarkaasna aan kula wareegnay wixii loo adeegsan lahaa in ay khatar ku geliyaan shacbiga soomaaliyeed waxay la tahay markhaatiyo ku filan laamaha warbaahinta intii goobjooga ka ahayd ayaa na dhegeysanaysa galanta dhinaca kale dagaalada soo noqnoqonaya ee maleeshiyada al-shabaab ku dhufo ee ka dhaqaaqay ka dhacaya magaalooyin ku dhow ama ka baxsan duleedka magaalada muqdisho ujeedada laga leeyahay wax kale ma aha maadaama ay laslacaari yihiin ujeedada kala dambaysta ay u socdaan waa inay shacbiga soomaaliyeed dhiig ka daadiyaan dowladda federaalka ee soomaaliya waa tahay ay shacbiga soomaaliyeed uga badbaadin lahayd dagaalhaas xildhibaan waa ku gartay si fiican baan u gartay in aad dagaalka shabaabka iyo sidaad uga hadashay laakiin dhowr iyo 10 sane lasoo dhaafay sidaasun baa la lahaa shabaab waa naflacaari waa la jebiyey xaggay maaragtay ka baxday berri maahana saa dambaa inta soo hartana laga qaban doonaa maalin walbana waa arkaynaa dhibaatadooda waxaan u baaqayaa markaan cabdiweli garaado stuudio ayla fadhiya bal xaaladan shabaab iyo dagaalkan lagula jira iyo meelna looma socdo jugjug meeshaada joog bay weli maraysaa sheekadu dowladdiina waxay sheeganaysaa guulo inay gaartay iyo midowgii africa walaal waxaan muxuu ahayto waxaa sharafi ah inaan halkan maanta idinla fadhiyo b b c da idinkala soo qayb galo waxaan kale oo u mahadnaqayaa asxaabta kale ee teleefonka uga jirta iyo dadka soomaaliyeed ee dhegeystayaasha ahba walaal dagaalkaani waa jugjug meeshaada joogsaa tiri haddaad xasuusato magaalada muqdisho markii laga saarahayay shabaab taliyahoodii xilligaa joogay wuxuu ku baaqay dagaal dheer sidoo kale dagaal dheer waxaa ku baaqay oo dagaalkaasoo kale markii maraykanku uu daalibaan ka saarahayey afghanistan dagaal dheer dagaalka ay dagaalamahayaanna waxaa la yidhaahdaa dagaal goljilecda qabo meesha aad u nugushahay inay ku qabtaan weye iyagu inay dhul qabsadaan ama muxuu ahayte guulo dhow gaaraan ma ahane waxaa weye inay goljilecda qabtaan weye nooca dagaalkooda waa noocaas weye haddana dagaalka siduu doctor bursaliid sheegay wuxuu salka ku hayaa labadaa mas'alo oo ah muxuu ahayte inay ka jawaabaan shirka loo fadhiyo muxuu ahayte kambaala shirkaas
shirkaas dowladaha ciidamada bixiya ay meesha ku hayaan siduu doctoorku sheegay ma gaari karaan wax ka baxsan inay weydiistaan in muxuu ahay tasahayda iyo wax loo kordhiyo sababta yeelaysana waxaa weeye waxaa kala duwan masaalixdooda mar hadday masaalixdooda kala duwan tahayna waxaa kala duwan taladooda marka mar hadday taladooda kala duwan tahayna marka muxuu ahayto isma waafaqahayaan laakiin hadda masaalixda ha kala duwanaato laakiin hadda ciidamadii meesha waa ku dhimanayaan ciidamada meesha waa ku dhimanayaan laakiin waxay doonayaan inay muxuu ahayto ciidamadaas dhimanhaya iyo khasaaraha in culayskaasi ay helaan muxuu ahayto dhiggeeda wax ka badan danaha ay gaarayaan inay ka miisaan badnaato khasaaraha soo gaarahaya saasay doonaya waa tahay doctor bursaliid shirkan kambaala madaxweynihii soomaaliya jooga madax sarsare oo wadamadaas ciidamada midowda afrika ee soomaaliya jooga ayaa tegey shalayto wasiiradii gaashaandhiggaa shiray maantay madaxdii ayaa shiraysa maxaad isdhihi kartaa oo aan ka ahayn inta hadda aan sheegnay oo kale ayay usii gogol xaari karaan mar haddii madaxdii soomaaliyana ay joogto iyaguna ay meesha la tegayaan meesha ilaan far iyo meesha bugtaa is oge cabdinuur sida aan aaminsanahay dad badan oo ay ku qanacsan yihiin haddiibana ay taariikhdu wax un hogaamin a bixiso oo mar kastana ay khasab tahay inaan milicsannaa waxaan ka sugnaa waa shimbirayoo heesaydii hore oo weligeedba jirtay amisom waxay codsan doontaa saanadda in loo kordhiyo xoojin badan in lagu sameeyo mushaaraadkoodii meel la saaro markay intaas ka hadlaan bay hadlayn waxay uga hadlaan in ciidamada soomaalidana la dhiso si amniga dalkaas soomaaliya la yidhahda ay ula wareegaan dadkooda iyo ciidamadooda taas marka af ingiriisiga waxaa la yidhaahdo footnote waa raacin dambe oo faahfaahin dheeraada haddaad u baahan tahay wax la midahoo dee wax lagu cunayaa waa magac soomaali marka waa in meel un lagu xusaa laakiin wax siyaada oo ka baxsan intii hore ay sheegi jireen aniga ma aaminsan inay kasoo bixi doonaan si kastabase markaad fiirisid haddii dowladdan waxaad mooddaa inay tahay dowladdii ugu horreysay oo nooceeda oo taageero intaas leeg oo shacaba haysata walow noocun hungoobidana uu yara jiro laakiin aan weli la qiyaasi karin ilaa bal sanadka labaad ay dhammaystirtaan haddii marka dowladda sidan ay soomaalida u taageersan tahay uu ilaahay talada haleelsiyo ay la timaado qorshihii ay amisom dalka uga bixi lahayd ciidankas qarankaee soomaalidana uu ula wareegi lahaa dib u dhiskii mid la taaban karo ay soomaalidu la timidna uu garab socon lahaayoo dib u heshiisiin dhaba dastuurkoo si xalaala loo nadiifiyo dhaba ciidan dhis dhaba ay garab socdaan waxaad mooddaa inay rajo jirto ay miiska garaacan karaan wax unna la soo noqon karaan laakiin aakhirka waxay isugu tegi doontaa in soomaalidu ay la timaado qorshe ayadoo ay iska leedahay ay rabta inay ku qabsato intay shirar caasimada ajnabiga ka dhacaya tegi lahayen wakhtigoodana ku lumin lahayen qodob kale aan raaciyo oo ah ciidamadan midowda afrika waxaa kale oo waajibaadkooda ka mid ah wixii ay tababar iyo taakulay ay ku kaalmayn karaan ciidamadan dhismaya ee soomaalida inay wax kala qabtaan marka ma jirtaa horta bal wax wada shaqayna oo iyaga ka dhaxaysa iyo howlgallada qaarkood inay wada galaan oo isla shaqeeyaanoo sidaas ay isu yihiin ciidan wada shaqayn kara cabdir nooca howlgal iyo wada shaqayn ee ka dhexeeya waa mar kastoo ay amisom u baahan tahay kaalmo inay soomaalida u yeerato ciidanka soomaalida wuxuu yahay eygii biirta ceelka biirta lagu sahamin jiray mar kastoo ay colaad jirto ciidanka soomaalida la hormariyaa ayagaa dhibtooda ayagaa dhuma ayagaa dhinta kadib bay amisom buudadkooda la yimaadaan mararka xataa ay jabaanoo culaysku uu bato ciidanka soomaalida babac dhiga oo wax sameeya waxaanad mooddaa arrintaas kasii xanuun badan inay jirto oo ah in qadiyadii iyo soomaalinimadii iyo qarannimadeedii iyo ciidan dhiskeedii waxeedii oo dhan lagu soo koobay in nimankan yararkaa lala dagaalo oo jamhuuriyad wax la yidhaahdo iyo soomaali wax la yidhaahdaa midnana iyo ciidankeed aan laguba jirin hadduusan amni jirinin sidee jamhuuriyad iyo qaraniyo u jirayaan amniba ma jirin de waxaa la rabay nimanka ilaahay kasukow maantay talada haya ee dadka soomaaliyeed ilaahay baday inay la yimaadaan qorshihii ay amniga dalka wax uga qaban lahayn oo uu qayb ka yahay gudaha keliya maahan in ciidan la helo ciidanku ma aha keliya inuu wax la dagaalo ciidamada adduunka kale ka jira waxay qayb weyn ka cayaaraan dib u dhiska dalkooda dekeday dhisaan
garoomay dhisaan buundooyin bay dhisaan jidaday dhisaan marka masiibooyinka dhacaan bay gurmadaana wax qabtaan xilliga nabadaana waxay mashquul ku yihiin sirdoon inaan dalka dibadda laga soo weerarin gudahaana wax canaasiira oo jamhuuriyadda qiyamkeeda ka soo horjeeda aanay ka kicin ciidan xabad keliya looma sameeya dib u dhis caafimaadka wax ka qabtaa beero wax ka qabtaa waa tahay xildhibaan idinku dowladda federaalka ma ku qanacsan tihiin wada shaqaynta iyo howlgallada iyo sida ay isu kaashadaan haddayba iskaashadaan ciidamada midowda afrika iyo kuwa soomaalida cabdinur aad iyo ayaad umahadsan tahay waxaad umalaynaysaa mararka qaar codkayo cirka jira laakiin waxaan jeclaan lahaa inta aanan su-aasha ka jawaabin iswaysiga ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa yimid soomaaliyeed meesha looga saari lahaa burcadda qalqalka iyo xasilnimo darrada ka abuuraysa dalka dowladda soomaaliya in shacabka soomaaliyeed ay gartaan in maleeshiyada al-shabaab ay tageen sokow inta dhexmarta ka hadalhaynta ku saabsan in ciidamada soomaaliya ee la hadalhayo iyo ciidamada soomaaliya keenaan maleeshiyada al-shabaab waxaa laga sheegay soomaaliyeed ay gataan suurtagalma noqonaysaa inta ay guryo ka qarinayaan dhaqaalayaasha xalaal sidii shacbiga soomaaliyeed dhiiga su-aalaha shacbigu aan doonayna inaan weydiino waxay tahay adduunkana ay daan dambiilayaasha waxaa soo sheegay shacbiga inay la shaqeeyaan dowladda waxayta ciidamada soomaaliya waxaad garanaysaan sanadkii taariikhda soomaalida inta badan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya gaar ahaan kalinayeen ayaan kasoo qaadan oo kaashanayna umada ilaah soomaaliyeed ku sugnaatay waxaa suurtagal noon weeraradu ha dhaceen waa soconaya maxaa yeelay soomaaliya dagaal ayay ku jirtaa moodima jirto ciraaq syria oo kale dadka soomaaliyeed maaha ka ku dhimanaya adduunkan dushiisa adduunyada oo dhan waxaad garanaysaan dalka maraykanka inuu weerar ka dhacay annagoo haddii maantoo dhan sababta keentay bros soomaaliyeed u dhintay waxay la tahay waxay ahaan lahayd guul shacbiga soomaaliyeed usoo hoyatay waa tahay dad kale oo soomaali karaan waxay tahay waxay karaan in ay soo sheegaan soo sheega hadiiba uu badbaadin karaa boqolaal kale oo soomaaliyeed ah xildhibaan ilaamaha amniga la shaqeeyaan xildhibaan aad baa umahadsan tahay waa kugu soo celinayaa waa kugu soo noqonayaa iminka war soo dhacay oo kambaale ka yimid ayaa waxa uu sheegayaa in madaxdii halkaasi ku shirsanayd ay sheegeen in golaha ammaanka qaramada midoobay qaraar uu dhowaan gaaray oo amrayey in la dhimo tirada ciidamada midooda afrika soomaaliya jooga ay ku tilmaameen madaxda kambaale ku shiraysaa in uu yahay mid xaqiiqda ka fog keeni karana in guulihii laga gaaray ee xasilinta soomaaliya ay dib looga noqdo oo ay khasaaraan waxaana ay ugu baaqayaan golaha ammaanka qaramada midoobay in uu dib uga fakero go-aankiisii hore cabdiweli garad qodobkaasi ka waran weli sheekadu waa soo baxaysaa madaxdii go-aanadii ay soo saarayeen ama shirkoodii waxa ay ka lahaayeen laakiin qodobkaas iyadoo hadda la dhaliilayay ciidamadii golaha ammaankuna uu horey u yiri waa in la dhimo ciidamadii soomaalida si ay ugu suurta gasho aakhirka inay la wareegaan aad baad u mahadsan tahay cabdi nuur intaanan kaa gelin laba arrimood oo laba noqotoo kale yaan rabaa inaan sheego mid waxaa weeye masalada dhismaha ciidanka soomaaliyeed dhismaha ciidanka soomaaliyeed ma aha qodobka soo socdaa jeclaan lahaa inuu noo noqdo laakiin kan hadda midda laba qodob baan rabay inaan xuso midda dib baan u dhiganaya midda kale waxaa weeye xildhibaan wuxuu ku celceliyey taageerada shacabka shacabka eedaha laga daayo shacabku taageero lama harin waxaa meesha shacabka hogaamintii iyo in la irmaaneeyo oo la jiheeyo yaa meesha muxuu ahayd halkaas weeye meesha ay tuhumaysaa ma aha shacabka in muxuu ahayd la yidhaahdo shacabka waxba lama harin taageero fiican oo muxuu ahayd shacbi yuu bixiyey su-aashaan haddaan u soo jeesto su-aashaan anigu muxuu ahayto inkastoo hadda war soo dhacay tahay waa filahayay inay muxuu ahayto warkaana imaan hayaan shirkii
amniga looga hadlahayey ee london lagu qabtay soo jeedintii muxuu ahaayeto african unionta iyo dowladaha ciidanka bixiya waxay ahayd laynkaasu ahaa hadalkooda oo waxay lahaayeen soomaaliya haddaanu ka baxayno shardi baanu uga baxaynaa conditional kelimadaasay isticmaaleen oo ahaa shardiga waxaa weeye shardi aan la gaari karinoo ilaa taa la helo oo taa la helo waddanku inuu cagihiisa isku taago ciidamo oo hanta iyada oo aan loo diyaarin waxyaabihii lagu gaari lahaa oo sidii taa lagu tegi lahaa oo taa lagu heli lahaa in dalku cagihiisa ku istaago oo ciidankiisa dhisto oo muxuu ahayd iyadoo waxyaabahaasoo dhan aan wax jawaaba loo haynin ayay muxuu ahayd yay shardigaas guntahayeen haddana muxuu ahaayeto kan anigu muxuu ahaayeto waxaan isleeyahay muxuu ahaayeto waa isla sidii waxayna u noqonaysaa muxuu ahaayeto amisom inay muxuu ahaayeto taageero siyaasadeed oo dalalkooda ah iyo taageero muxuu ahaayeto dhaqaale ay ku helaan haddaad la socoto wadamada ciidamada ay ka joogaan africa waa dalal muxuu ahaayeto aan dimuqraadiyad ahayn oo niman muxuu ahaayeto muxuu ahayte dowlado soo raagay oo muxuu ahayte marka waxay rabaan muxuu ahayte inay u isticmaalaan awoodda caalamka in indhaha laga leexiyo duruuftooda siyaasadeed oo gudaha ka jirta isla markaasna muxuu ahayto lagu dhaqaaleeyo dhaqaale ay kaga helaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiweli garaad halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c london barnaamijka aad tooska u dhegaysanaysaan facebookana uga daawanaysaan waa dooda jimcaha oo aanu ku eegeynay maanta amniga soomaaliya guud ahaan saacaddu xaggiina waa 5:15 dhegeystayaasha laf ahaantooda aaraa kala duwan ayay soo dhiibteen waxaana ka mid ah kuwa kan magacaygu aniga waa faadimo ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa amniga muqdisho soo xumaanaya amase koonfurta soomaaliya waxay ila tahay maaragtay milatariga madaxdooda markasta la bedelayo xilligii dowladii sheekh shariif ninkii la odhan jiray dagabadan isagoo magaalada muqdisho ka saaray al-shabaab oo xataa faatul cabdalla la qabtay ayaa la bedelay markastoo madax la bedelaba horta waxbaa qaribmaya waxaanaad moodaa xukuumadda in iyada laysaga dhigayo dabar iyo maaragtay sabab marka waxa wanaagsanaan lahayd intuu dalka xoroobayo in ciidamada wasiir gaashaandhigoo muhiima iyo jaran ciidamo muhiima loo sameeyo iyo horjoogayaal waxa hubaala inuu dalka iyo dadkuba badbaadayo dadka dadweynahana waxa looga baahan yahay inay dowladooda barbar joogsadaan war dowladaan la barbar joogsan lama eedayn karo farmaajo iyo maaragtay qayre waa labada nin een odhan karo waddaninimaa ku jirta magacaygu waa cabdiwahaab dayib sheekh jaamac cabdigeesi degan xarunta gobolka awdal ee magaalada boorama aniga waxay ila tahay bixitaanka amisom iyo weerarada ay kordhisay xarakada al-shabaab inay yihiin laba isku suntan oo ay al-shabaab kaga faa'iidaysanaysa ciidamada dalka muddada 10 sannadood ka badan gacanta ku hayay ee ilaalinayay ee waardiinayay madaxda iyo muwaadiniinta dalka Soomaaliya waxa saxaboon Soomaalidu inay dib iskugu noqoto oo ay dhisato ciidan qaran oo daacad laga yahay oo la kafaalo qaado dhaqaalahooda iyo baahiyahooda gaarka haddaan intaa la helin Soomaalidu ma heli doonto geed qabow oo ay ku nasato aad baad mahadsantihiin BBC Soomaali fursadda qaaligeedna siiseen bashka faarax oo jooga muqdisho dardargelinta ay xarakada al-shabaab dardargeliyeen dagaalada waxay muujinaysaa in weli awood badan ay leeyihiin xarakada al-shabaab dowladda Soomaaliya waxaan kula talinahay in xarakada la gasho wada hadal ayna dhinac iska dhigto dagaalada ama in qaab military ku xaliso dagaalada ay shabaab kala soo horjeedaan dowladda wadankan waxaan wada hadal lahayn loo maxalli karo dagaalna waa mid ka soo gaarsiiyay 27 sano sida uu hadda u yaalo wadanka marka wax walba iyo koox walbaaba wada hadal lagu xaliyo wada hadalka ayaa ka muhiimsan inta dhiig u daadalahay maalin walba aad bay dhegeystayaashaas u mahadsan yihiin kuwo kalena waa ay soo socdaan oo ra'yigooda ee dhiibanaya barnaamijka dooda sida aad la socotaan waxaa marti nooga ah dr bursaliid stuudiyahayaga nairobi ayuu fadhiyaa cabdicasiis xildhibaanna khadka muqdisho ayuu kaga jiraa stuudiyahana waxaa ila fadhiya cabdiweli garaad cabdiweli haddaayto qodobkii aad soo qaaday dhismaha ciidamada aan rabay inaad meeshii ka sii wado waxaa dadku mar walba isweydiiyaa oo aan filaya adiga iyo ragga kale oo khadka ku jira iyo gabdhuhuba in ay mar walba dadku ay isweydiiyaan had iyo jeer su-aashaana xaggee wax ka khaldan yihiin maxaa horta ciidamo loo dhisi la'ya walaal ciidanka dhismihiisu marar badanna waan iri ma aha arrin farsamo ma aha
waxaa weeye waa arrin siyaasadeed weeye waxaana ay loo baahan yahay dadka soomaalidu inay arrintaas ay ka go-an tahay inay ciidan samaystaan dadka soomaalidu arrintaa inay diidan yihiin kuma eedaynhayo laakiin waxaa jira kalsooni la-aan iyo is-aamin la-aan xoogaa kalsoonidii yaa meesha ka maqan niman siyaasiyiinta ah ee soomaaliya jooga waxaa loo baahan yahay inay ka howlgalaan in sidii mas'aladaa loo dabooli lahaa waxaa jirta taariikh uu leeyahay ciidanka soomaaliya dhismihiisa waxaa lagu bilaabay iyadoo ayna jirin mas'alo siyaasadeed iyo isqabqabsi si farsamo yaa waxaa lagu bilaabay in la sameeyo muxuu ahaayeto 30 degmo in laga soo qoro muxuu ahaayeto ciidan tira isla eg isku xero lagu xareeyo sumada loo sameeyo la yidhaha idinku waxaa tihiin biirjeex iyo dhifsada iyo libsida iyaa tihiin oo sidaa loogu sunto marka waxaa laga raray baycaddii ay ku noolaayeen ee qabyaaladda iyo muxuu ahaayeto sida ahayd tuuladoodiiba inta laga raray yaa waxaa loo sameeyey sumado kale iyo calaamado kale oo ay halkaas ka ilaaliya libtaad ka sidaana ama muxuu ahaayeto marka farsamo ma ah dadku waxay leeyihin ciidan hala sameeyo hala isku daro kidaa ma laakiin mas'aladu waa mas'alo siyaasadeed waa in siyaasad ahaan loo xaliyo mas'alada go-aan cad bay u baahanta waa tahay doctor bursaliid waxaan la soconnaa ciidamo badan in aanu leenahay oo wadamo badani ay noo tababareen oo mararka qaarkood 12,000 ilaa 20,000 la gaarsiiyo haddaysan ka badnaynba waa 75,000 wey ciidanka la tababaray ilaa hadeer hadda gacanta ku jirtana oo hadda la yidhaahdo waxaa weeye waa 20,000 oo xaqiiqadii ugu dambeysay ay tiri muxuu ahayd 30% baa ka run ah marka ciidankaa 75,000 ah oo muxuu ahayd 20,000 muxuu ahaayeto 20,000 hadda ay noo diiwaashan gashan tahay oo 30% la xaqiijiyey inay ka run tahay inta kale ay tahay muxuu ahaayeto wararka dayaxa tahay waxay noqotay muxuu ahayd 9,000 inuu ciidanku yahay oo aan wada hubaysnayn xildhibaan haye magaalada muqdisho afhayeenkii amnigaada ah ciidamadiinnii iyo howlihiinni inkastoo aad oran doonto ciidamada tiradooda iyo waxaas iyo in la sheega maaha cabdicasiis xildhibaan waa tahay doctor bursaliid iyo stuudiyaha nairobi ayaan u gelaya xildhibaan waa ku soo noqon doona haddii alla idme bursaliid waa maqlaysay cabdiweli iyo habdhismeedka ciidamada iyo ciidamada maaragtay aanu haysanno hadda soomaalidu ay haysato inta ay yihiin iyo ka waran hadde horena waad kuu soo martay su-aashaaniye cabdi nuur ciidan dhis soomaalidu hadda waxay u baahan tahay la socda wacyiga maanta iyadoo aan la halmaamin jamhuuriyadda iyadoo aan la halmaamin qiyamka dadka soomaalida iyo waxa dadka adduunka kale ku dhaqan iyo siday amni ahaan u nool yihiin laga baran karo sida saaxiibkii cabdiweli sheegayba arrintan waa arrin siyaasadeed ma ahan mid farsamo sidoo kale waa arrin istaraatiijiyadeedoo in 10 sano 20 sano 100 sano dambe looga fakara ay tahay waana arrin qadiyadeed oo jamhuuriyadda inay dib u soo noolaato oo kaalinteeda ay beesha caalamka ku lahayd ay dib u hanato u sheegato la soo noqoto ay tahay ma ahan wax kaftan iyo caasimad ajnabi in looga sheekeeya ay tahay warka ka soo yeeray kambaalana waxaan u arki karaa inuu yahay noocun qaracan ah inay aamini la yihiin in soomaalidu ay ku hamin karto inay la soo noqoto waana nooc mashruuc allahu raxmadee ninkii jenaraal caydiidaha maalmuhu dhintay 3 cisho kadib waxaa soomaaliya ka dhacday faragelintii ugu horreysay oo militari oo qayaxan oo etoobiyaanku ay ku sameeyeen allahu raxmadee cigaal oo markaas sheeganaya inuu ahaa madaxweynaha somalilan baa inta ishalmaamay oo ay qadiyad la tagtay yidhi markaanu qaran noqonnaan xisaabtami doonaa NGO baan noqonnay buu yidhi mashaariic laga shaqaysto marka waxaad moodaa markaas mashruuc maba jirinoo waxaa laga yaaba in khatar xuduudaha ay u socdeenoo aysan meel fog u soconine waxay khasabtay in tigreedu ay badweynta hindiya timaado waxay khasabtay dhulkii inuu noqdo dhulaan la kala lahayn waxay khasabtay in lagu qaracansan yahay in soomaalida 500 oo ciidan markii laga qaaday la leeyahay may 21 kuna joogtay aanan qaadin waxna aan u dhisinay aan mar kale bal dib haddana la isu saaraysaa marka soomaalida ugu horeysa maxaa yeelay amniga khatarta amni ee heer qaran ee jamhuuriyadda iyo dadka soomaalida maanta haysaa yaryarka keliya ma ahan waxaana haystaa waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala oo laga jeestay
waxaana haysta afaara qabiil si xun loo isticmaalo waxaana haysa wadaniyad xumo waxaana haysa aamin aanan ku qabin arma cudurka ugu weyn ee qabyaalada yahay isaamin la'aanta weli taagan tan iyo 19 iyo boqorkoo laga jeesta iyo cabdi nuur dadka soomaalida oo aan ama u bislayn ama ku baraarugsanayn in la aamino dadka hagi lahaa soo dowladda maaha laakiin dadka laftigooda waxaa laga rabaa noocun xadaaradeed inay la yimaadaan oo ay aaminaan hanaanka dastuuriga iyo hanaanka hay-adnimada gacanta ajaanibta oo nagu badatay waa culayska ugu weyn oo kale waxaa weeyaan erey af soomaaliya waa u la'ahay waxaa la yidhahda comfort zone qof kasta xaas wanaagsan iyo shaqo wanaagsan iyo qaxwo wanaagsan iyo haasaawo wanaagsan iyo gaari wanaagsan waa imtixaan waa la ishalmaamay 27 sana cabdinuur la marayaa maalin walba waxaan ka hadlaynaa ilaa maalinkii la sameeyey xukuumaddii ugu horreysay ee qaran ee kumeel gaara ee shirkii carta ka soo baxay ilaa maanta waxaan ka hadlaynaa ciidan sidii loo dhisi lahaa iyo ajnabi see ku keensannaa iyo see u baxaa marnana qof soomaaliya oo dib u heshiisiin ka hadlaya ma maqlaysid qof soomaaliya ilaahay aan u noqonna leh ma maqlaysid qof le aan ciidan dhisanna ma maqlaysid ajaanibta sidii qandaraas looga raadin lahaa mashquul lagu yahay xildhibaan baa ku soo noqday oo teleefonku mar yar naga go'ay cabdicasiis aad iyo aad baad u mahadsan tahay hadday waxaanu ka hadalnay intaad naga maqnayd ciidamadan faraha badan dowladda soomaaliya iyo tiradooda iyo inta ka dhabta ah oo la haya iyo inta ay yihiin iyo bal ka waran xagga diyaargarowga ciidamada ciidamadeenu cabdinuur aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waxaan rajaynayaa qabka telefoonka oo xumaa dartiis inaan hawada uga baxay uga maqnaa laakiin aan la socday barnaamijka waxaan rajaynayaa jamhuuriyadda soomaaliya waxay leedahay dad soomaaliyeed oo weli damirkoodu nool yahay kuwaas oo isugu jira ciidamo ka tirsan kuwa qaranka soomaaliya iyo dad soomaaliyeed oo weli damirkoodu nool yahay waxaan rajaynayaa shacbiga soomaaliyeed inay ku qanacsan yihiin waxa ciidamadeenu ay u taagan yihiin magaalada muqdisho iyo badaalka jamhuuriyadda soomaaliya markaan ugu daro kuwa duurka ku jira ee dagaalka ku jira maleeshiyada al-shabaab in dowladdeenu ay tahay sidii aan dalka uga xoreyn lahayn kooxaha duulaanka ku ah gobonimada dhulka jamhuuriyadda soomaaliya anigu shaki kuma jiro inaan hadalkii aad horey u tiri ahaa maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo tan gobolka midna kula jirto tirada ciidamada jamhuuriyadda soomaaliya ay leedahay maanta inaan uga hadalno barnaamijkan sida tooska uga baxaya laanta soomaaliga waa idin mahad celinaya laakiin dadka soomaaliyeed ay leeyihiin ciidamo daaci kara sharafka iyo karaamada shacabka soomaaliyeed haddii la helo shacbi soomaaliyeed oo garab istaaga ta kale oo walaalkii soomaaliyeed uu ka dhawaajiyey ee dooda igala qaybgalaya ee ah dadka soomaaliyeed heshiisiin ayay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed waxaa loo jamhuuriyadda soomaaliya halkaa xoogaa ku celi number si fiican laguma maqlina dadku waxay u baahan yihiin baa tiri dib u heshiisiin uga jeeday in dhow 10 shil dadka soomaaliyeed ha ka dhicin dalka gobolka iyo dadka soomaaliyeed madrasana waa heshiis mushkilada oogani inta ay dadka caqliga saaxiibka u ahay tilmaamayaan waxa ay tahay soodaro waa imaanaysaa mar haddii political representationka marka la wadaaganayo lagu wadaago 4.5 marka la difaaca kuwa wax ku qaadanaya 4.5 aan laga heli karin ruux shacbiga soomaaliyeed sidii sharafkooda iyo karaamadooda loo difaaci lahaa waa tahay ka waran iyada habkii iyo qorshihii aad u dejiseen marka dowladda federaalka ay doonaysay ciidan qaran inay ku dhisto isaga xaggee maraya wax tallaabaa la qaaday ma jiraan wax soo muuqdaa ma jiraan waxaad garanaysaan in wadamada gobolka sida niyaddan walaalahana jabuuti iyo dowladaha gurigii soomaaliya oo ay ku jirto jamhuuriyadda turkiga in ay bareen tiro lixaad leh oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kuwaas oo in ay sugaan waxna kasaan guud ahaan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya soomaaliya cid kasta oo khatar ku ah waxay khatar naga qaateen cid kasta oo khatar ku ah adduunka soomaaliya waxay khatar ku tahay wadamada gobolka iyo adduunka intiisa kale soomaaliya waxay noqotay ciidankan aad sheegaysid marka ma hab ciidan dowladeed bay u dhisan yihiin mase imaaraadku qolo iyo reer hebel buu tababaraa turkigu qolo iyo reer hebel buu ciidan u tababaraa cabdinuur waxaad garanaysaa in madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaruhuba ay tababaro waxaa
yaala magaalada muqdisho ciidamo soomaaliyeed oo iyo qaybaha kale kuwaas oo ay tababarsiiyeen ciidamada nabadka sida xaruntooda ku taala magaalada muqdisho kuwa iskaadka carabta ee xaruntooda ay ku taala magaalada tababaranaya yani dhamaystirinana gaalkaan kula jirno maleeshiyada shabaab cabdicasiis taleefonka weli waa gogo-aya xoogaa waxaan jeclaan lahaa wax yar inaad igu noqoto waxaasoo ciidana oo turki iyo imaaraadka iyo midowda africa iyo qolyo kale ay noo tababareen iyo kuwii nabad sugidda iyo bileyskii iyo waxaasoo dhan marka laisku wada daraa xamar keliya ma ka adkaan waayeen waddanka intiisa kale iska daayay waxaad garanaysaan ciidamada isbishiga soomaaliya yeelatay kuwa soo howlgallo ay la howlgalaan ciidamada gurmadka soomaaliya si wax looga qabto goobaha kuma filaan in jamhuuriyadda soomaaliya aan ka xoreyno waxay ku jiraan saaca iyo maalmihii iyo toddobaadmihii ugu dambeeyey dagaalka naga soo hor marka shacbiga soomaaliyeed iyo madaxda qaranka oo u adeegaysa shacbiga soomaaliyeed mid kuma noqdab al-shabaab si sharci darro ah wax niyad shacbiga soomaaliyeed aad iyo aad baad cabdicasiis xildhibaan afhayeenka amniga ee dowladda federaalka aad iyo aad baad u mahadsan tahay halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c london oo toosna facebooka b b c somaali aad uga daawanaysaan waxaan jeclaan lahaa markaan dhegeystayaasha inaan u baaqo anoo jeclaan lahaa qodob aad muhiim u ah in akhyaarta falanqaynaysa barnaamijka ay hadhow u galaan marka aan dhegeysano aarada dhegeystayaashan waa maxamuud xeef waxaan joogaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaan u arkaa shirka ka dhacaya magaalada kambaala ee dalka uganda ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada nabadgelinta ee amisom mid aan waxba soo kordhinaynin waayo haddii aynu nahay soomaali waynu ognahay in ciidamada amisom ay u joogaan shaqo balse aysan ka goonayn inay dalka ay difaacaan dhinaca kalena waxaan u arkaa ciidan adag oo nabadgelineed oo soomaaliya yeelato inay ammaanka wax ka tari doonaan taa bedelkeeda waxaa su-aalah ma laga raali yahay seesaa loo dhisi doonaa taa jawaabteeda waxaan u dhaafi doonaa martida ka qaybgelisa barnaamijka magacaygu waa muxyidiin maxamuud ku magac dheer muxyidiin beledka waxaan joogaa magaalada boorama weerarada xooggan ee ay kooxda al-shabaab ayaamaha kusoo ekeysiinayso caasimada muqdisho waa kuwa runtii wejigabax ku noqon doona ama damqaya laabaha dadkii u jeclanaa xukuumadda cusub iyo isbedelkeeda hase ahaatee waxaa looga bixi karaa in ay ka go-naato mas-uuliyiinta dowladda in ay soo cidhib tiraan iyaga oo kaashanaya shicibkooda soomaaliyeed shirka looga hadlayo ammaanka ama xasiloonida dalka soomaaliya ay isugu yimaadeen dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliyana waxaan u arkaa inaanu kaasi waxba ka qaban doonin amniga faraha kasii baxaya ee dalka soomaaliyana iyaga ayaa wax istari kale ee dalal shisheeye oo ka arrimiyaay ma sugi karaan ammaankooda waxbana kama qaban karaane halaysu tashado ayaan odhan lahaa waa maxamed cali caalin oo jooga magaalada beledhiig oo ka tirsan gobolka togdheer weerarada al-shabaab ee soo kordhaya ee ay qabsanayaan deegaanada horta leh waxaan odhan karaa waxaa sal iyo sabab u ah ciidamada qaranka soomaaliya oo aan awood fiican lahayn iyo ciidamada amisom oo iyaga laftigooda aan daacad ka ahayn howlgalka ay u joogaan dalka soomaaliya ee shirka ka dhacaya wadanka uganda ee kasoo qaybgelayaan wadamada ay soomaaliya ciidamadu ka joogaan dowladda soomaaliyana ay ka qaybgelayso waxaan odhan karaa waxa weeye shirkaasi waa qowda maqashi waxna ha u qaban waxaan odhan lahaa ciidan qaran oo soomaaliyeed mar uun hala sameeyo si ay u kafaalo qaataan amniga shacabka aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaas ra'yigooda ka dhiibanayay barnaamijka dooda jimcaha ee galabtay oo iminka noo socda oo ku saabsan amniga soomaaliya waxaanu la soconnaa wadamada adduunka kuwo badanoo waxaa jira xasrada ay ka taagan yihiin oo afghanistan oo kale maalan 40 sano iyo ka badan baa wadanku degilaya daraad oo ugu dambeysay madaxweynaha dalka ashraf qaani wuxuu ku baaqay daalibaan inay tahay koox aan la dhiyarsan karin sidaa daraaddeedna uu ugu baaqay heshiis nabadeed inay dowladda la gasho urur siyaasiya in uu noqdo intii uu urur dagaalamo noqon lahaayo talada uu kula tartamo siyaasiyiinta iyo ururada kale siyaasadeed ee waddanka ka jira colka warafm lagu dilay cabdiweli annaga ka warran iyo shabaab haddaynu si dhaba aanu ugu baaqano madaxdu ay soo jeediso ku dhiirato
bal shabaab in lagu dayo inuu ogol yahay in kale waa gooni walaal brofesor madaxweyne gaani go-aankaas uu gaaray waa go-aan geesinimo leh oo muxuu ahaayeto bog cusub u furahaya siyaasadda waayadan dambe mas'aladaas waa mas'alo aanu muxuu ahayta soomaalidana aanu isku dhinac ka taagannahay isku duruuf baanu ka nahay afghanistan iyo soomaalidu waxyaabaha dhinacaas oo kale ah laba ciladood baa haysata madaxda soomaalida waxaa weeye cilada koowaad walwal ay u qabaan kursigooda oo nimankan haddii muxuu ahaayeto lagu soo daro talada oo dalka ay yimaadaan ama sidii sheikh shariif uga qaatay xasan sheekh nimanku meesha muxuu ahaayeto uga hoos maraan walwal noocaasa waa qabaan walwal kale oo ay qabaanna waxaa weeye waa laba walwal weeye ka kale ay qabaanna waxaa weeye war ama muxuu ahaayeto ay ku qanci waayaan muxuu ahaayeto maraykanka iyo dowladahan muxuu ahaayeto wada dagaalka la dagaalanka argagixisada ama arrintaas muxuu ahayd marka waxaad moodaa inay sugahayaan iyagu inay suulka u taagaan oo dhahaan okay waa dhihi kartaan hadda waa la hadalnaa laakiin inay dhiiradaan annagu hadda muxuu ahaayeto aad uma fiirfiirinayno waa tahay doctor bursaliid sida cabdiweli sheegayo waxa la isku hayaa waxaa weeyaan horta ma u madax bannaannahay go'aanada masiiriga ah ee aan rabno inaan annagoo magaca dadkeenna ku hadlayno jamhuuriyadda ugu heelino taas dood inteeda la eg weeyaan laakiin marnana qof gacanta afka kaa saaraya oo ku aamusiin kara 24 saac ilbiriqsi kasta oo ka mida waqtigaaga ku ag joogo afkaaga xukumo male waxay u baahan tahay go'aan geesinimo leh waxay u baahan tahay in si istiraatiijiyadeed loo fakaro si qadiyadeedna loo fakaro looguna baaqi karo nimankan yararka inay dib u heshiisiin heer qarana ogolaadaan waxaan ka warqabnaa in dastuurka ay ku qoran tahay in shareecada islaamka ay tahay diinta keliya ee dalka lagu dhaqayo wax ka soo horjeeda oo shareecada ka soo horjeedaana oo ama dastuurka ku yimaada ama sharci samaynta heer baarlamaan iyo senad ku yimaada ay tahay waxaan waxba ka jirin waa guul inteeda la eg oo baarlamaankii tirada badnaaya 500 iyo siyaadada ahaa uu soomaaliya u soo hooyey waa go'aan uu baarlamaankii 60kii ku dhiiran waayey culimo badan oo marka la fiiriyo marka wax la sharaxayo diinta xataa way fiicanta in la gale ay ku doodaan in culayska ugu weynba uu meeshaas naga soo gaaray si kastaba se cabdi nuur markaad fiirisid taariikhda ciidamada howlgallada ee adduunka soo maray ama aan dhahno qaramada midoobay ama aan dhahno midowga africa ama aan dhahno unilateral kuwa hal dal uu iska aaday oo keligii meel marsaday ama kuwa isku dhafo hybrid ah oo UN-ta iyo midowga africa iyo qaramada midoobay la isku daray saddex arrimood bay ku soo afjarmaan waa midoo in howlgalka uu noqdo mid guulaysta in mid lagu guul daraysto uu noqdo kadibna ayagu ay iska tagaan iyo mid inuu noqdo in dowladda markaas joogta ay cayriso ay tiraahdo idinma bahni laguma hayo taariikhda howlgallada gartay laakiin haddii qolyahan kooxahan la yidhahdo islaamiyiinta haddii la yidhaahdo dowladdii baa idinla hadlaysa inta badan way kala jabaan sidii kooxdii maalan casbalo joogtay intii ka jabtay sheekh shariif iyo raacday jabuuti tagtay dowladdii gashay intii ka dhalatay waa u jeednaa weli wax ay soo xasiliyaan lama arko sidee marka xeega lagu xigta ilkana ku nabad galaan sidee ku suurtoobaysa iyagiyo wada dhan horta soo ma aha in nimanku ama ha ogolaadeen ama ha diideen ama ha kala jabeen soo may ahan in rabitaankii siyaasadeed oo heer caasimadoo heer dowlad dhaxa inuu jiro oo guddiga amniga qaranka intuu ka fariisto arrintan mudnaan koowaad nooga dhiga maxaa yeelay shuruudaha ugu waaweyn tiirarka ugu waaweyn ay dowlad ku shaqaysa xataa marka laga yimaado hay-adnimadooda iyo dastuurinimadooda iyo kala qaybsanaanta kaalimaha ay cayaarayaanoo heer baarlamaan iyo garsoor iyo bulsho rayid iyo xukuumaddiiyo fulintiiba xataa marka laga yimaado tiirka koowaad waa amni weeyaan min raas casar ilaa raas kamboni qofka amnigeeda sixi kara waxunka xataa na tusi kara inuu bilaabay baa dadku soomaalida aqbali lahaayeen aqoonsan lahaayeen karaamadoodana uu sidaas ku qaadan lahaay oo qarannimo loo bixi lahaa antaydii hore cabdinuur ku soo noqdee ma jirto meel howlgal qaramo midoobay ama midow afrika ama isku dhaf ama dal gaara uu aaday oo guulaystay taariikh laguma hayo annagana hadda uma fadhino nimankaanu inay guul keeni doonaan waxa meesha yaallaa waa mashruuc aad baa umahadsantahay casharo badan baa jiroo la baran kara adduunka laga xildhibaan oo dhowr jeer khadku uu ka xumaaday baa hadda soo galay xildhibaan
xal si loo helo qorshaha dowladda ma ku jirtaa waan nabadeed in aad ugu baaqdaan oo aad ka dhabaysaan al-shabaab cabdin aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waxaan jecelahay daan shacbiga soomaaliyeed markii la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo dhawa ku horreeyey laamaha warbaahinta ee ka horeeya dibadda maleeshiyada dagaalka kuli kasta oo garata leynkaaga xoogaa weli waa leynkaaga xoogaa weli waa iga gogo-ayaa iigu celi in yar maqlaysaan ha madaxweynaha ku baaqay baa tiri markii la doortay nabad madaxweynuhu wuxuu ku baaqay waxaan ka jawaabay lahaa waajitaan madaxda soomaaliyeed oo ku baaqay oo garata inay hubka dhigaan kana qaybna ka noqdaan halkan loogu jiro xasil iyo nabadgelyo oo ka hana qaado nabadda Soomaaliya inay wadahadal dowladda Soomaaliya la gasho dhinaca kale waxay kooxaha marin habaabinaya shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan maleeshiyada al-shabaab dhawaqooda inuu yahay inuu sidii Soomaaliya loo dhaqi lahaa shariicada islaamka qodobka saxsiga wadda suurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa ku qoran qodob ugu horeeya xadiisa koowaad ah shariicada islaamka waa saldhigga dowladda Soomaaliya qodobkiisa labaad saddexaad farqadiisa labaad wuxuu leeyahay wax ka soo horjeeda shariicada iyo maqaasideeda iyo saddexaadna waxay leedahay wax kasta oo hor imaanaya shariicada islaamka iyo maqaasideeda waxay imaanayaan dastuurka marka waxaasoo qodoba intaasoo qodoba oo la sheegay marka ma fududaynayaan shabaab in lala hadlo mase waa sii fogeynayaan anigu waxaan rumaysnahay kastoo aaminsan jamhuuriyadda ee maanta jirta inay ka leexatay ku dhaqanka shariicada islaamka iyadaaba aasaas u ah qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliya dhinaca kale waxaa laga maarmaan ah arrimahan ku saabsan baaqii Ashraf Ghani soo saaray madaxda dowladda federaalka madaxweynaha ugu horeeyay cid kasta oo in hanaan nabadgelyo ama xasiloon ay ku doonto waa soo dhaweynaynaa garatana inay hubka iska dhigaan sidaas darteed anigu ma intii isreeyay ama ha dowladday ahayd laakiin inay iyadu baaqi jeediso maadaama ay dadka o dhan matalayso waxay la tahay wadahadal inay laga maarmaan u noqon doonaan ayaha iyo dibadhiska ama mustaqbalka Soomaaliya mar in ay la hadasho cid kasta oo tabanaysa ha ahaadeen middiisa ha ahaadeen mid dhaqan iyo aad baad xildhibaan u mahadsan tahay daqiiqada hartay waxaan u qaybin lahaa cabdiweli iyo bursaliid cabdiweli waxa weeye baqi uu ku dhawaaqay madaxweynuhu markii la doortay iyo midka hadda muxuu ahayto walaalkii cabdilcasiis xildhibaan uu sheegayo waa shardi weeye doontan aanu saaranahay nala soo fuul ee aanu heshiinna ma ah aanu heshiinna oo wax wada qaadanna oo wax wada yeelanna ma ah midda kale oo aad su-aashii ku jirtay oo ah nimankaani amay muxuu ahayto sidii ay dhacday casmare iyo jabuuti oo ay kala jabaan shardigaa kaas aha qolana waxay aqbashay doontii socotay inay raacaan qolana waxay aqbashay inay ka haraan laakiin haddii heshiis muxuu ahayto laga niyad fiican yahay uu meesha ka dhaco waxaa la dhihi karaa waxbaa ka soo bixi kara bursaliid 20 second igu soo xir barnaamijka aada u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan dadka Soomaalida qalbigooda iyo maskaxdoodaba la hadlo Soomaaliya cid noo maqani ma jirtay aan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka ahayn asagaan isu dhiibno iskuna tashanno isuna imaanno aan tashanno assalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad baad u mahadsan tihiin cabdiweli garaad oo falanqeeya arrimaha amniga stuudiyaha ayuu ila fadhiyey waa mahadsan yahay khadka muqdisho waxaa kaga jiray cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya stuudiyaha iyaga Nairobina waxaa fadhiyey dr ibraahim faarax bursaliid oo falanqeeya arrimaha siyaasadda gobolka iyo Soomaalidaba aad baad u mahadsantihiin akhyaartana dhegeysanaysa barnaamijka mawlid xaaji